waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan dhammaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlano taariikhda guud ee magaalada degmada ayla ee gobolka nugaala. degmada taariikhiga ah ee ayl waxa ay dhacdaa bariga gobolka nugaal, waana degmo taariikhi ah oo caan ku ah waxyaalahaas asnaamta iyo calaamadaha kale ee qaraniga ah. waxa ay degmada ayl lagu xasuustaa daarta daawad oo ay dhisteen sayid maxamed cabdillah xasan darwishkii usoo halgamayay ciida soomaalida. degmada ayl waa degmo taariikhi ah, waxaana ay ku taallaa xeebweynta badda cas. degmada ayl haddaba lagu arkayo muuqaalo caalami ah amaba taariikhi ah, waxa ay ku taallaa bariga gobolka nugaal, waana degmo ay degaan dad soomaaliyeed oo gaaraya 100,000 oo qof. haddaba si aan u ogaano degmada ayl waxaa warbixintani nooga soo jeedinaya degmada ayl noogana soo diray weriye cabdulqaadir cabdirasaaq. halkani waa degmada ayl, waa hoyga dhaqanka iyo xasuusta ee soomaalida. waxa ay ahayd degmadii ugu horreysay ilbaxa dhulka soomaalida, waxaana ay degmanimo ku qaadatay in degmada ayl in ay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan dhanka ilbaxa iyo taariikhda. degmada ayl waxa ay leedahay dhul beereed caalami ah, iyada oo degmada ayl ay leedahay ilo biyoodyo aad u fara badan oo biyuhu ay qulqulayaan, iyadoo ay aad ugu wanaagsan tahay tabaca beeraha degmadaasi. waxaana ka soo go'a dalag kala duwan, waxaana ku arkaysaa meelo badan oo dalxiiskoodu u yahay kuwa ugu wanaagsan caalamka oo dhan. degmada ayl oo ah degmo qurux iyo qiimo intaba alla ku manaystay, waa degmo taariikh weyn ku soo leh dhulka soomaalida, waxaana lagu xasuustaa halgankii daraawiishta oo halkaasi ay ku yeelahayeen daarta daawad ee daraawiishta iyo wixii ka horreeyey.